شهر كيرا قاتبا هكبد يربي الدمر كيرا جيب قال يا $1 بخاتي بالله كنت سمعنا يا هذا سيله هيوجي كون قاسم مركو سوق قالنا مركب وحر هتسني يا تليفون برامج قاس يك هو محي يبربوا فقير هذا زيرو بكسوق لا يا هذا كو والدائرة ده فرق يصير كيف فقراء كتيران وين كورس بين بلي قاطي العقب بدنا نكون بحيي لما كنا دورنا كل دول أيام كل كتوم كويب سيدون كفاية يستي لكن كورس كي تقريبا مركان سعود من الله بلود كذب وحن كفاية كل هواد شن شهر العقل الله ما يسنتي هره ما يصير كأجانا دستمر البود وقفاية سوى البود وقفاية الدنيا آخر البود وقفاية dadka miiriyaha iska dayacana damdamta wuxuu dacaydeen yahay ku habsaamin maskaxdaada iyo maankaaga dhisoo shaqayso dadkana ku habsaamin warcad Soomaa kan talooyinku siinaya waa talooyin lagu bislaanayo rafaada kan talooyinku siinayana waa talooyin raaxa oo qabow hamigaagu marka hadduu yahay dhaqaale curiso wax samaysato wax noqoto hamigaagu bay hawsh ku xidhantay ustaadku inuu ka wada faa'iideysan doonaa isaga inuu waqtiga siin doonaa waxaan jeclaan lahaa qof kasta inuu talooyinka iyo tusaalooyinka ustaadka nood garaysto meel ku qorto oo noqdo waqti wax inaga bedela laakiin aanu noqon waxaynu fariisanay oo ka tagnay laakiin noqdo wax inaga bedela waana halkay u dhimatayo waa cid kasta maanta wuxuu socotaa waa adduun yaro la sameeyo magac la sameeyo wax noocaas marka talooyinkaasi talooyin naafay noqon doonaan mawduuca haddaan ku soo dhawaado entrepreneurship and wealth creator buu ku saabsan yahay and wealth creation waxa weeyaan halaburka ganacsiga iyo sida hanti loo sameeyo intaas buu ka warramayaa waqtiguna waxaad moodaa inuu aad iyo aad u urursan yahay waxaan isku dayi doonaa aniguna inaan aad iyo aad u soo ururiyo waxaanan ka warrami doonaa 3 qodob oo kaliya hadalka lama dilay mucdiisa iyo waxa la aadaa halka uu ku leeyahay bilga qaybta koobaad aan yardul istaagi doonaa limaada hada almawduuc aslan mawduucan lagu maarki jirin dadka culimada iyo dadka ducaadu ka warramayay waayo maxaynu u keenay waa qodob labaad ahamiyadda uu leeyahay maalku ayaynu in yar wax ka tilmaami doonaa marka saddexaadna su'aashan ka jawaabi doonaa mawduucan maxaynu uga warramaynaa ama maxaa keenay in laga warramo waxa weeyaan sababta keentay waa alfiraaru min alfaqri wey waa in laga cararo laga dido laga baxsado baahida iyo saboolnimada suubanaha salawaatullaahi wasalaamu calayhi baa tusaale inoogu ahoo ducadiisa aroor walba ilaahay uu ku baryo waxaa ka mid ahaa allaahuma innii acuudu bika min alkufri waalfaqri waxaa la lamaaneeyey gaalnimada iyo saboolnimada la walaaliyey bahashu saboolnimada waxaa la yidhaahdaa waa in geed gaaban iyo geed dheer loo fuulaa sidii meesha looga saari lahaa ee loola dagaalami lahaa ee bulshada looga tirtiri lahaa fahamkaasna waa fahamkay qaadeen dadkii nebi maxamed tarbiyadeeyey salawaatullaahi wasalaamu calayh cumar bnu khadaab wuxuu leeyahay علينا ولا جوريا لو كان الفقر رجلا لقتلته فقر وهدو قفي هاي وندري لها بردوت وغشانك حكم لها ساس بان لو قد ذالي ضدك مسلمين تانا اي تهي دلين يرد يعدي عدكيد وغارسين كر لغارسين كر يبا in lagala dagaalamo faqriga iyo aafaadkiisa iyo dhibaatooyinkiisa dhammaanteen in kooda dhagsannahay oo la isu sharxo uma baahna waxa se hana qaaday waqtiyo dhexe oo islaamka umadihiisii ka mid ahaa waxaa hana qaaday fikrad in la diimeeyo faqriga in la diimeeyo la dugsado oo dadka diin ahaan loogu sharaxo oo la yidhaahdo zuhdiga iyo baabkaa loo geliyo oo dadka loo macaaneeyey inay fuqaro bisaarada iska ahaadaan markaasaa gabaya lagu tiriyey qiila lilfaqri ayna taskunu qaala fii camaa'imi alfuqahaa'i faqrigaa la waraystay bay yidhahdeen war xaggee degan tahay kulaha cimaamada wadaadadii fuqahadan fadhiyaa oo muxuu ka dhex qabanayaa talow waa falsafa waa fikrad in dadka lagu takhdiiriyo ninka cilmi iyo diin iyo nolol wanaagsan baranayaa inaanu maal kasbanin waana khata weeye tootari waxay ka soo horjeedaa hadyigii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh dadkii uu tarbiyadeeyey suubanuhu calayhi salaatu wasalaam 10 nin ugu dhawaa al-10 al-mubashiriin fi al-janna 6 kamidii maal qabeen bay ahaayeen waliba milyaneer ah milyan kuna ma aha milyan iska sheegay waa milyankiyo caadi oo kana naqaana iyo ka badan bay haysteen sida aan ku xaqiijiyay buugeeni 100 mashruuc iyo mashruuc baan fasli kaga waramay marka xataa waxaan isku dayay lacagihii laga soo wariyay ahaa diinaarkii iyo dirhamkii inaan dollar u rogno marka buugaas uga noqon doonta insha Allah milyaneer way haayeen waana kasbanayeen waana shaqaysanayeen dulluni ala suuq baana yiraahdeen sida Abdurrahmaan ibn Awf radiyallahu anhu oo ahaa saxaabadii rasuulka Ilaahay ka ugu lacagta badnaa ama ugu hantida badnaa
كموضوع سببت الله ورمى يا واسدا وإن دتك لجا وعي جريو آف أوردن فقر لجا وعي جريو حمانة لجا وعي جريو بخل لجا وعي جريو دغن كحول بلا لحظة قضب كامر كان معدنا أهمية ومال كلية هاي هذا الشيء شرح ما يوحنا تلمام يا أون قرآن كا إلى طبعا تلمامات با قرآن كده حديث مالك لقول شيء أفرت تلمامات بانكو قابسن دونا مرك تلمان تكوبادي لهي وحشيء تبارك وتعالى مالك يلو لهي سكلي وآتوهم من مال الله مالك إلهي بس كله وحي لهي اللي أنا محمى تعرف تصدق وقبصه أما واحد مركز ضدك اللي قد تسيء أما اللي إريا معه وواحد وناكسن ويه تلمان طلبات القرآن ومالك كل شيء وان سوق وكوبيا هو إنه يهي قيامة وواحد لقول تاجن يهي والله في دبرة دين تاكو تاجن مبادئ دا كو تاجن نلاشا كو تاجن عالم كودن با كو تاجن دولة نمدا كو تاجن مال لأنتي نلاش متاجنانيش تاسنا القرآن كأنه كلا صوب حينا تلمامها القرآن كوسين يوحى كمدا وزينة الحياة الدنيا مالكو بدك قاركو ضل عين بكرجع المال وزينة الحياة الدنيا دواب زينة الحياة الدنيا وأنا قلنا لنا ورنا كلام كآخرنا وأمان ووح وناكسن الدنيا آخرة زينة دنورها لها شيء لها تنظي الدنيا ده زينة دنورها لها شيء أنا العقل يستوي ما تهم سماه خلاص هو أسوي رفادي ميسد كديد ميسد هذيك له تذكر جماعة هاس هرسنا يسايو واحد نقول إنسان نقف أمام الشخص اللي لو ما نشأكته باهيه أساسي كجوابي كرواية باهيه أساسي كجوابي كرواية أنا فقر قوم يلا باس بوقف كجريا مصائب بوجريا مصائب ذنوب بوجريا آثام بوجريا تدفر بدل النار توح كحرين يا أبوه فقر إيوه سيد وقع فقر قاس اللي بعتوين كأوبضي وقت جاني سامحيني waxyaabaha bulshadeena laga warramo ee faqrigu uu geeysiiyay in xog badan ka hayo la tatakhayyal yani ma suuraysanaysid hal shay baan ku gaabsanaya dalaaqa iyo furitaanka ka dhaca maxkamadaheena iyo qoysaska burbura 95% wax ka badan waxa uu sababa faqriga laba nin iyo gabadh is haysto kasta hadaad waraysato waa yar tahay oo waa dhif iyo naadir dad isku haysta waxaan dhaqaalahay 95% waxay ka kacaysaa كانوا يسكب بحين كانوا واعي نلاش يبودي كانوا واعي سنة دعدة بيلبو بحين كانوا واعي يربطها نوعاس مركا أهمية ومال كلية هي نواسداس قرآن كان أدبا ووصى الله حصي وحي إلهي تبارك وتعالى تلمام يوكل تلمان أفراد إنه يهي مالكم مدى يدت كليه مال كي نيبا إلهي مال كي نحسيننا ولا تؤتوا سفهاء أموالكم حوله النبي وحي كليه سيدا درتيد مالكو وواح بنو آدم كردحايا والرسوس أما وهانتي برشدة وضلها دهي وهي تهي قفكو إنو أهل جمسدي وسميسن لها أما وأهل لها وح وكجمع عرما بنو آدم كجمعها إنه هو صار صلاة أبيو أركانو كبل أبيو فيشتان يربو يبينشريو الكاس بيكسود بالعبين قاركود بقى إيجا ورمي عجائب يا أحداث الله يابس وهذا أنا هالكن وقت بدلوا هلينين مركان ما ينسد كي بهالشا أما أرنتن أسل كيدو سلوين كل هذا محاد سينت أنا نقول ما ينسدك وحن تلمام الدونا أما لبقى ضبع دسا يده الرئيسية أنت أنا تصالي ياشب حنين لبقى ضبع دسا قلبك كوبادة ما ينسدك دسا وحويان أباهدة بسارد يقحرك يتعبك ما ينسد والي أبو سمايا وهذا قف كل لكن كفكر سيء وحا إلى هذا عربت الضغط يولد الإنجاز سماه marka qofka la cadaadiyo ayaa buu wax qabtaa ama alxaajatu umul ikhtirac wa ma kale marka balay hawli ku qabsataa hal abuur meedhan bad noqonaysa la samaha allah imika hadii halkan hawli nagu qabsato waxaynu keenaynaa oo albaabka laga bixi kari waayo kun iyo kun khad oo kale loo bixi karaynu keenaynaa marka maskaxda la cadaadiyo ma aragti illi bi ahsan ka sanka ku saaro waxaad keenaysaa intaas oo arrimood dad badan waxa jira aan jaamacadna ka soo bixin hadaba miyiga ka yimid meelaha ka yimid ama iska dhibaataysanba muddada gudaheed magaalada wax kale ku noqdo waayo waxa weeyaan mindsetkiisa waxa dhisay su'aalaha faraha badan ay isweydiinayo baahida iyo dhibaatada kaligii heshay sidoo waxa uu rogrogayo halkan kaga heegay dabcan waxyaabo kalena way caawiyaan waa laga yaabaa inaad soo leedin iyo taas wayna wada haystaa oo wada fikirnaa fikirka waxba lagu dari doonaa fikir kaliya ma shaqeynaya fikirku laakiin waa qaybta koobaad ما إنسدك قفك بنادم كسور ريحدة كأنت باهي ديسا كأنت بركة هلك وكسوجي ملك الجيس شيء كوبادة لقول سواكا
وتعبك يا باهظة يا قحرك قفك سوى واجهه أما الصدمات بالله صدمات مصائب وحباك وقول عيا صدمة أنا فلان إنباك وقول عيسى ولا وحرية دين بالغ يا رير باك هدومية هؤلاء هذا فلان إنباك وقول عيا غيري باك وقول عيسى قفت كتير سنة إذا ما قرابة هذا صدمات كا يجوكتا ينكارتا وقول عيا قف برارج سامين ستكيس وقيبت هو رئيس السوق ليا قيبت هذا ما ينسد كريستا وإنه قفك أقوان أهان ولسوي أقوان أهان وعشر رقاته وكوكو بعينيو ما ينسد كيس كيفية التفكير هذا نوع كل ترين لها هدي اللغة العربية إنجليش كو حكون أكسنتين بين اليوتيوب يدا كباردان مليون يسوف واحد هليسان بقول المحاضريو هذا الباه هليسان وضد خبراء كور رميان سيد اللورد اللو كبعية ماينسيتك وانا كل ترين لها هنا الرادسان لأنه مركلية تا واحد دقاقة بقول يستيتن درجة بقول يستيتن كيلومتر بعد دقاقة ماينسيتك هذا دستود هجاجسو والله شرحوا subconscious mindki iyo xogtu sida u gashay iyo xogtu aafooyinka ay keento subconscious mindku haduu burburo iyo wax xiisado dhan oo hadda aynaan qaadan karin weeyaan oo ka hadalkeeda u baahan laakiin aad soronayso halka la inaga haysta dhibaatadu inaga haystaaba waa mindset iyo qaab u fikirka dariiqada tafkiir way af carabigina dariiqada tafkiir wal aqliya iyo qofku qaabka uu dhisayo inuu hagaajiyo marka shayga labaad ee lagu dhisaano waa aqoonta ta nafciga badan leh wanaaga badan leh faa'iidada badan leh midhaha badan leh waa ta dambe weey waa ta dambe lagu dhiso aqoon lagu dhiso si kale haddaan tusaale u yar dhigo dadka qaar waxay odhanayaan war haadha maalmaal iyo samayntii iyo waxaan cilmi uma baahna inay hebel basawkiisa ila duur iska tagay ma sha Allah ilaahay u qarxiyay aye maxaa looga baahan yahay jaamacad iyo wax sheegshay waa dariiq kamid ah duruqda mindset ku dhismo inaga sheegnay oo baahida iyo qaxarka 50 sano soo taagnaanaya 40 sano oo markaas ilaahay u barakeeyay cagsiga ku kala jiro wax fahmaya mindsetkii wax uu soo xirxirayaa oo khad baa u qarxayo dabadeed waka ilaahay barakeeyay wax badan ay isugu toosayaan marka waa in laga faa'iido mindsetka la dhiso meelahan markan ka waramaya video ya la duuba badana kuma baraarugo video-gan la duubaya muddo kadib ma arkaa wixii media saa u wareegayo oo hawada iyo cirka iyo dhulka jaraya kadibna arrimahan markan ka waramayo su'aalay ku soo hoos qoraan dhalinyarada war wax samaysto shaqaysto qaar badan isba garanayno wax ku soo qorayaan adigu ma samaysatay wana laga yaabaa inaad isweydiinaysaan Soomaa way idinka jawaabaya waliba si shafaafiyad leh baan idinka jawaabaya haddaanan ka faa'iidin oonan samaysanin oonan 0 ilaa 180 u dhaqaaqin idin babaan sheegeenba waayo maxaan ka faa'iidayaa inaan idin sheego isweydiiya intaas soo socday intaas oo shidaalaan idin soo bixiyay waa soo dhaqaajiyay taqriiban saacadii baan soo socday imika markaan idin dhabeeyana waa iska sii noqon doonaa meel calaamad su'aal ahayn maxaan ka faa'iidayaa loo is garanayna xataa qofku markuu xataa aan laga yaabo dadka aanay is garanaynin waxa laga yaabaa inay ku jirto niyada bal dadka soo barta Soomaa inagu xir baan isku naa khiyaar baan isku noo soo garanayna marka danta ugu weyn xaqiiqatan oo saan hadalka idin ku bilaabay ilaahay ikhlaaska hayna waafajiye course baan bari qaatay lacag badan aan ku bixiyay $2,000 ku dhow ayaan ku dhigtoon ku iibsadon ka faa'iideystay laakiin course-kii taqriiban markaan saa u dhameeyay 2 bilood kadib waxaan ka faa'iiday ku dhawaad 5 jeer lacag ku laabmaysa intii hore soo leeyma fahmin mindsetkaaga inaad dhisto meel walba waad uga faa'iiday si walba waad uga faa'iiday adduun iyo aakhiraba waad uga faa'iiday dadka media iska dayacanay damdamta wuxuu dacaydeen ku habsaamin maskaxdaada iyo maankaaga dhiso shaqayso dadkana ku habsaamin warcad Soomaa way qodobka labaad u gudba hadaba qodobka labaad ee sameeya marka waxa weeyaan mindsetka halkan waxa igu qoran buug cajaa'ib badan oo gabigiisuba ka sheekeynaya fikradda uu u dhisan yahay in ay tahay qofka inuu mindsetka burburka ah faqriga bisaaradda ka badbaadiyo mindsetka dadka wax shaqaystayna fahamsiiyo buuggaas waxaa la yidhaha marar badanna meelaha waan ka sheegay waa rich dad poor dad al-abu al-ghani wal-abu al-faqir af Soomaali baa xataa lagu turjumay baa la igu yidhi anigu ma arkine af carabina wuu jiraa af Englishna dawaaba asalkiisaba luqada Englishkana oo sida lagu qoray buugga haddaad helaysaan isagoo af Soomaaliya raadsada haddaa carabi ku akhrin karaysaan raadsada hadii kalena haddaydan xataa akhrin karin oo tiin dadka ka caajisa akhriskiisa waxaa dhagaysta podcast yuu leeyahay talkhiis buu leeyahay sharax buu leeyahay internetyada ka baara halkan markaa waxaa igu qoran 10 qodob oo cajab badan
oo ka warramaya mindsetka dadka aan waxba haysanee fuqaradii qaabka u fikiraan iyo qaabka ay dadka wax sameeya u fikiraan. maxaa lagaagaga sheekaynayaa? waa tanna iska ilaali, taana qabso. mid walba haddaan sharax isnaa waqti baan u helaynin oo dee waa la aadaamayba, waan yar dul marayaa uun furuuqda u dhexeeya mindsetka dadka aan waxba haysan ama labada fikradda buugga siduu qaabku u qorayo, aabbe saboola iyo aabbe hodana. labadoodba waxay dhaleen wiil iyo wiil, labadooda wiil baa isku xidhnaa. labada wiilee yaryari marna waxay u tegi jireen aabbaha saboolkaa, marna waxay u tegi jireen aabbaha hodankaa. labaduba waxay dooni jireen inay ka bartaan bal sidii ay noloshooda u maaraysan lahayn wax u noqon lahaayeen. aabbaha hodankiina wuxuu siiyaa talooyin, aabbaha faqiirkiina wuxuu siiyaa talooyin. totally talooyinkaasi iska hor yimaadaan. kani talooyinku siinayaana waa cirka, kani talooyinku siinayaana waa dhulka. haddaba say yeelaan? kani talooyinku siinaya waa talooyin lagu bislaanayo rafaada, kan talooyinku siinayaana waa talooyin raaxa oo qabow. labada fikradood qaabka uu markaa mualifku waa Robert Kiyosaki, waa garanaysaan qaabku fikradaha u dhisaya waxa weeyaan inuu ku fahamsiiyo dadka wealth creation-ka ah qaabka u fikiraan iyo kuwa kale. allahu akbar. tobanka fikradood ama ugu muhiimsan baan soo qaadan doonaa anagoon aada u sharaxaynin. aabbaha hodankaa markay meeshiisa ugu tagaan wuxuu mar walba kala hadli jiray inay khataraha iyo masaa'ibka u badheedhaan. aabbaha kale faqiirkiina mar walba wuxuu kala hadli jiray, u sharaxi jiray inay ammaan khatarta iska ilaaliya, aayar jooga, aiswaalina, laynkiina qabow iska raaca, badaha lama galo, saasuu ku odhan jiray. ka kalena wuxuu ku odhan jiray laa tacallamuu kayfa tudiiru lmakhaatir fadunyaa mali'atun bilmakhaatir. wararkaa ka joogin halista barta buu odhan jiray, sida loo maareeyo looga baxo. waayo adduunyadu waa wada halisba. haddaad faqiir ahaatana halis ku dayn mayso, haddaad qani ahaatana kolleyba ku dayn mayso ee adduunya waa dhib iyo rafaad. marka aabbaha hodankii wuxuu ku odhan jiray ka dhiga halista iyo qaxarka iyo rafaadka iyo maalintay u daran tahaydaba maalintaad wax ku gaadhaysaan. xaqiiqatan waana laba fikir oo ceel iyo dhul isu jiro weeyaan. uma garnaqi karayno waqti badan baynaanu helin, laakiin 100% waxa saxan fikirka qariga saxan in khatarta loo badheero, la barto sidoo khatarta loo maareeyo. misaal yar oo basiid aan ku siiyo, tusaale yar oo fudud aan ku siiyo. haddaad barato imika haddaad barato mushkiladda haddii dhul aad leedahay ama dhul aad gasho lagugu qabsado, sidee loo furdaamiyaa, halkee la tagaa, sidee wax la yidhaahdaa. imika adoon dhulba haysan haddaad barato iyo haddaad tiraahdo dhulkiiyo waxaa layskuma galgala badahaasi, waa la iska wardiyaa meelahaagaasaa la fadhiistaa. oo si allaba badana hadhow lagu siiyo dhul si ay u dhacdaba dhaxal ku heshayaa iyo si kale lagu siiyaaba. dhul baa lagu siiyey, dhulkii khatar baa kusoo wajahday, marka waa lagugu qabsaday, mushkilad kalaa timiday. kiibaad 100% waxaaga dhacsan lahayd haddaad fursad soo siin lahayd qaabka waxaan loo maareeya iyo maanta kugu dilaacday. waan fahmi karaynaa, waan malaynaya waagaa kugu dilaacsan dhinacan u cararaysa. walaadhe waan iska wardin jiray wina dhul iyo waxaan kuma jirin isaan u badbaadiyaa, si aad u badbaadinta adag ku taala. khatarta waa la bartaa, waa la maareeyaa, mindsetka la furaa. dhibaatadoo dhan adduunyada wada dhibaatee waa loogu talagalaa inaad dhibaatada eriyataba, mashaakilka lagama baxsaday waaba lagu cararaaba. libaaxa marka la dhaha xaggiisaaba loo sii cararaa, soo maaha. laba waxa ay tilmaami jireen aabbaha qani saboolka ahi wuxuu mar walba ku odhan jiray, uu ku dhiirigelin jiray mushahar yar iska qaata, intiina maamaaraysta, howlo kale iyo baxar iyo rafaad ha isku gelina, shirkadaha u shaqo taga, shaqaale wanaagsan noqda. qaniguna wuxuu ku odhan jiray mar walba waxaad ka fikirtaan sidaad shirkadaha laftoodaba u iibsan lahaydeen. ka warrama waa cel yar soo maaha. kani wuxuu leeyahay waxaad u shaqo tagtaa shirkadaha heblaaye ee internetka leh, shirkadaha heblaaye ee telefoonada, shirkadaha heblaaye caanaha soo dejiya. kana wuxuu ku leeyahay habeen iyo maalin waxaad ka fikirtaa saad taa u iibsan lahayd iyo kuwa ka sarreeya baad u yeelan lahayd. waana runtii wey, qanigaa saxan. waleesh nusuusta sharciguna saasay sheegayaan hamiga sare wax wanaagsan wey. banu aadamkuna bal cilmiga ilaahay waxaa la yidhi axaadiistuna sheegaysa ana cinda danni cabdi bi, waxaad ilaahay ka malaysatay u sacyudun baad gaadhaysaa. haddii hamigaaga ugu sarreeyaa buu yahay saad shaqo ku heli lahayd, CV-ga lagaaga aqbali lahaa, alxamdulilah kursi yaroo aad u fadhiisan lahayd waad iska gaadhi maalinaad gaadhaba. hamigaagu hadduu yahay war wax haba sidaan maca hajaarkeeda maca wixeedaba anigu u qabsadaan waad gaadhi un insha allah. waxay u baahan tahay hamigeeda, waayo kana wadooyinkiisii unbaad raadsanaysaa, kana wadooyinkiisii unbaad raadsanaysaa. asubul almuusila, wadooyinka ku gaadhsiinay unbaad kana ku mashquulaysaa, kana ku mashquulaysaa. imise qof baanu garanaynaa oon shilan hayn oon waxba hayn oo odhan jiray insha allahu maruun baan dhoofi, maruun. tusaale gaaban laga yaabaa idinku inaa garanaysaan siduu u socday nimka dibadda iga soo garaaco kaala soo hadlayo kore waa joogaa. waayo
banu aadamka kale intay wax kale ka fikirayaan isaga focuskiisu xusaaray soo baxaa marka ama tahriiba ku baxo ama diyaarada ku sii daba laabay hamigiisa waxa qeytinaya ma tahay misama adiguna shayga aad hamiga ku hayso the result is not lie النتائج لا تكذب نتيجته بيان ما شيكتو هذا قلبات كا قبسطو ترابو ربان تغياد غاريga shidaal ku shubato nabad qabtoonay balaayo ku helinka gaaruun baa tahay aakhirkii ma tahay misama ma 180 ku soco ama 20 ku soco oo wad gaari doontaa hamigaagu marka haduu yahayna dhaqaale curiso wax samaysato wax noqoto hamigaagu bay hawsh ku xidhantay qodobka saddexaad ee kala duwanaayo wuxuu ahaa mar walba aabaha hodanka ah wuxuu ka fikiri jiray shilinku helaba kayfa yastathmir sidoo wax uga dhaliya aabaha faqiirkiina wuxuu ku fikiri jiray mar walba horta suuq u noolaado kaba fiican tan uga iibsada $100 soo galaba laba shay oo laba go-o shaalo wanaagsan ku dooranaya inuu ku soo iibsado kana wuxuu ka fikirayaa warbal hay dambeeya san uga shaqaysiyaa horta 100 Soomaalida habarka haysta Soomaa shaarka yar qaataba hagbad yar bay dumarkii yar ragiba galaya $1 buu khaati billahi ku jamcinaya hada si ilaahay ogiye kunkaas markuu soo galana markiiba wuxuu raadsanayaa telefoon baro magaas iyo kaba maxay iyo biriba waa faqiir hadana zero ka soo bilaabaya hadana go ودائرة فارق يصير كيف فقراء كتيران ninkan kale wuxuu bari jiray caruurta yar 100 say uga shaqaysiiyaan iska bagaajo caawo kadibna ma aha investmentiga ama maalgashigu waa shirkado waaweyn ma aha waxa yar suuqa laga maalgashanayo mise fikrado yar baa jira dumar baa xawaash iibinaya qaar baa maxay iibinaya qaar baa wax kale iibinaya waxa laga faa'iideeyaa wax laga dhisayaa wealth laga sameeyaa marka investmentiga ayuu bari jiray oo oran jiray waxba dib ha u isticmaalina waxa barataana ka heshaana ka shaqaysiiya aabaha hodayga faqiirka ah wuxuu aaminsanaa aabaha maxaan idhaahdaa hodanka ahi tacliinta maaliga ah inay miftaax u tahay hodan in lagu noqdo aabaha faqiirka ahina wuxuu aaminsanaa waxaas waa iska hadal adeer lacag baa la baranayaa iyo waxaas waxba kama jiraan aye ka shaqayso maalintii ilaahay ka dhigo hodan bad hodan noqon doontaa wax kastaaba waa biyadillaah aqdaarta Soomaalidu maxay yiraahdaan doqon ilaahay taqaana laga ma gar hela Soomaa jamiic al-asbaab buu tacdiilinaya waxa asbaab ilaahay adduunyada dhigay oo dhan buu xidhaya markaas ku qoray may adeer wax waliba waa qadar Allah qaybiyay yaa isku haystaba in la qaybiyay ilaahay intuu qaybiyay buu dhulka saa u daadiyay ma doonana mise iska daynaa waxaan isku haysanaa cilmigu soo tabtaa kama buuxo ilaahay soo muu qaybin inuu qadarkii ilaahay maaha deesaynu uga faa'iideysanaa ma isku haynaa ma iska seexanaa mise marka qadarka qalad qulub ugu dhacay dadka oo si kale u fahmeen maanta oo dhan bay ku wareerinayaan oo sheekhow may waxaan waa qadar ilaahay samaday ka qoran tahay daasoo haynaya samaday ka qoran tahay halka fadhi dabadeed samaday ka qoran tahay asbaabta la imo yaa rasaaq yaa fataax dhoo soco oo saci ilaahay ku qadimaysid subxaanahu wa ta'ala aabaha qaniga ah wuxuu aaminsanaa waqtiga iyo qiimihiisa inuu wax weyn ka yahay waqtigu sidii loo gaari lahaa hodantinimada aabaha faqiirka ah laakiin wuxuu aaminsanaa waqtigiisa marka uu amalkiisa ka soo baxo inta kalena maqaaxiyahaas iska yar fadhin jiray oo nolosha qabow adeer la isma xiitiyo oo jiray mushaarkaaga markuu soo dhaco galabtiina macawiista adeer iska xidho meelaha ka kaftanoo shaah iyo bunka kan kalena isagoo hata milyaneer ah haddana wuxuu ku taagnaa mudac buu saa ugu taagnaa daqiiqad yar kasta wuxuu ka fikiri jiray xaggeen wax ka sameeyaa maxaan barnaamij soo kordhiyaa xaggeen ka dhacaa xaggeen kala saasuu ka fikiri jiray habeen iyo maalin waa mindsetkii waxa la sharaxayaa Soomaa waad ila haysataan qodobka toddobaad aabaha qaniga ah wuxuu mar walba sameyn jiray inuu dhiso aqliyad maaleed xoolihiisana si xikmad leh oo magacaabo shil walba daba socdo baynama ka faqiirka ah mar walba wuxuu oran jiray isrif af carabi markaan ka dhigno isrif ma fi al-jayb yaatika ma fi al-ghayb yani kan qaniga ah wuxuu daba taagnaa isagoo $100,000 haysta malaayiin isagoo haysta haddana halka $1 daba taagnaa waa idaasu haynay halkan muxuu halkan ugu baxay maxaa laba san loo oran waay halka $1 baa macna la lahaa qofka hodanka ah ka faqiirka ana bal waa cilmi ilaahay waxba macna lama leh $500 buu soo qaataa shantaba uu ku casheeyaa kadibna wuxuu yiraahdaa ma xagga ilaahay bay ka imanaysaa waa arsaaqo sawir yar oo ma aqaan meediyaha ku aragtaan la soo barbar dhigay bal dadka rijka u fiirsada dadka hantida haysta garan yar oo iska caadiya iyo surwaal yar oo iska xidhay bilaa dhibaato ah ma taayimsa maaha fuqarada u fiirsada koor marka $40 iyo kaba waaweyn oo $200 iyo telefoon $400 isaga haysta muxuu la wareerayaa iswareerinaya wuxuu ku mashquulsan yahay saboolku wuxuu ku mashquulsan yahay liibhaari naas dadka si uu u cajab geliyo ninka kalena dadka waxba kama gelin dantiisu raacanaya u toostaa ugu haya marka halka $1 hadaanu qiimo kula yeelan Soomaalida dacayadeeda ha u joojinin
waxay ku odhan doonaa faqiir wallaahi anakan waxba dhaafin waa dhabcaal ilaa halku daba socdaa way ku odhanayaan hadhow toole markaad halkaagaas ka daba socotaad wax samaysana adun bay ku ammaani xaajiga muxsinka duci kaa ducaysan doonaa soo saama markaa inta hore dacaayadooda iska dhegeyso hadhowna ammaantoodun dhegeyso adigu waxaad noqotaa weligaa iska ilaali inaad gasho doorka ammaanaha iyo dacaayadayaha adigu waxaad gashaa doorka la dacaayadayaha iyo la ammaanaha marka horena faqiir gacmaha isgooyaa marka dambena khayr allah ku siiyo muxsin ummaddii uu u faa'iideeyey qodobka sideedaad aan soo gabagabada ku dhawaado mar walba wuxuu u fikiri jiray qaab riyaadi ah ama dhalinyarada uu ku bari jiray odayga hodanka ahi aabbaha hodanka ahi sidii ay hal abuur u samayn lahaayeen mar walba maskaxda u tuujin lahaayeen baahi banu aadamku leeyihin uga jawaabi lahaayeen baynamaa ka kale ee faqiirka ahi mar kasta wuxuu ku qanacsanaa camal sugan lama huraan waa caws jiilaal buu ugu mahmaahi jiray adeer la isma wareeriyo waxba fikir baan keenayaa iyo waxbaan isku dayayaa iyo kabahun baa kaa dhammaan kana wuxuu odhan jiray ha kaa dhammaadaana wada kaba kalun baad iibsanoo maalinta dambena waxaad noqon uun nin go-aan gaadho weligii go-aan laguma khasaaro calaa mari taarikh bal dib u noqdo qof go-aan lima khasaaraba go-aanka laba shay baad ka faa'iidi halkaad la rabtay inaad la hesho inaad la weydood khibrad ka faa'iido go-aan la khasaaray ma jira laakiin khasaaraha waxaa dhala go-aan la-aanta ataradudu maqbaratu lfuras baa la yidhi ma sameeya ma ka daaya ma sameeya ma ka daaya fursadaho dhan baa ku dhaafaya dabeed sagaalaad aabbaha qaniga ahi mar walba waxa uu cuskan jiray waxaa la yidhaahdo cala alfuras qanigu furas ku abuuri jiray faqiirkuna furas ku sugi jiray halkaasna waa halkii soomaalida wey maalin unbay albaabka kuu soo garaaci buu ku leeyahy fursad iska socoto oo albaabay soo garaacaysaa ma jirto way ku maahmaahaan lacagta ila waana lagu dul kufaaya bay ku odhanaya war anaa u baahan cid ku dul kuftay weli ma haysaan horta cid ku dul kuftay mise waa hadalun cidna kuma kufto kii shaqaystu baa dee ku kufa markaa qodobkaasi waxa weeye furasku kana abuuri jiray qanigu wuxuu ku odhan jiray mar walba furas abuuro opportunity sameeya fursadda markaa waa la abuuraa lama sugo ugu dambeyntii waxaan kusoo khatimayaa qodobka ugu dambeeya aabbaha qaniga ahi ubadka wuxuu bari jiray altacliim almaali wayudaribu calayhim wuu ku tababari jiray weliba boqol yar buu u dhiibi jiray buugay ku qorantay mar wuu yar tababari jiray maanta maxaa soo shaqayseen maxaa kordhiseen maxaa keenteen kan kalena muu aaminsanayn waxaase wuxuu aaminsanaa in dadka lagu dul noolaado wax la taro uu markaasaa noqdo markaa soo duubo baabkaasi waxa lagu kala tegay qodobka koowaad waa mindsetka iyo qaabka loo fikiro qodobka labaadna fikirkaa waa in dadaal iyo nafurnimo dhaqaaq ficil la raaciyo ficil hadda maantoo dhan aada noqoto khabiir experian ahoo intaasoo buug soo cabay oo laakiin halkan unii fadhiyo caajisana waxba soo kordhin maysa maydaanka u dhaadhac dadka dhexgal aafoo dhan la kulan mujrimiintoo dhan la kulan shayaadiintoo dhan la kulan dadka dhexgal beenaalayaasha la kulan soo dhaweeye cid walba la kulan nebiyadii ilaahay soo diray bal qur-aanka akhrista masaajidadii iska fadhiyeen bulshadaysaa u dhex socdeen aafo iyo ku caayo ku dilaba waa la kulmayeen nolosha ambiyada waxaa adayga loo soo mariyey si ay u waajahaan nolosha dambe dadka dhexgal ummadda dhex soco shaqayso isku day dadka warayso suuqyada dhex tag isku day wax walba inaad samayso ha sugin markaa biskud yaroo lagu soo geliyo shaah iyo sharaab oo lagu leeyahay hoo cun khayr allah ku siiye adduunyadu kuma timaado sidaas kuma timaado iyo aakhiraduba labaduba waxay u baahan yihin dadaal iyo tacab bay u baahan yihin qodobkii markaa dee waxaan wax ka yar tilmaamay in weliba kooban sidii loo samayn lahaa hanti qofku u samaysan lahaa oo de istraatiijiyaad iyo waxyaaba badan u hadheen sidoo kale entrepreneurshipkima waan taabanba riyaadatul acmaal ama qofku qaabku ganacsiya waxa u abuurayo de waqtiga aada ciidhi inoogu ah insha allahu madalo dambe iyo marar kale rajaynaya inaan kala faa'iidaysano ma doonaysaa inaad ka mid noqoto warbaahinta nolosha islaamka isla markaana aad hesho muxaadaraad iyo weliba barnaamijyo diin iyo aakhiradaada ku xasuusinaya warbaahinta nolosha islaamku waa warbaahin ka shaqeysa arrimaha dacwadda isla markaana leh adeegyada baraha bulshada moobilkaaga gacanta ayaad kala socon doontaa warbaahinta nolosha islaamka fadlan ka mid noqo warbaahinta nolosha islaamka haddaba waxaad ku xidhnaataa adeegyada baraha bulshada sida facebooka tiktoka twitterka youtubeka instagramka